سائل كلاباد وحول لي صدوه ذي waxa ay sameeysaa xusayda hooyadeed marka aniga iyo xaaskayga ma ka qayb gali karnaa ayuu leeyahay sidoo kale xoolahaasi xaraan miya diinta maxay ka qabtaa in la sameeyo xuska waalidiinta bismillaah alxamdulillaah sallallahu ala nabiyina muhammad xuska waxa Soomaalidu yaqaaniin oo sanadkiiba mar meel in cunto lagu bisleeyo xoola lagu qalo dadka loo soo yeero noocaas niyaaxay saxaabadu u yiqiineen mana banaana sida xadiiskii Jariir ibn Abdullah Imam Ahmad ابن ماجه يا قيركيس اي وريان كعب ما بنانا هدايس بنانين ان كقيب كشان ما بنانا وحرام والهي وحو ليهي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان شيء ذنبي يا شيء حدغدب مدنا هيسكو غخان سينينا marka waxa soo haray waalidii wax loo sadaqeeyo waa xaq waana sunnadii nabiga idinkana sodoodii waxay xusaydaa waa xaaskaaga hooyad ayeeydiis xaaskaaga marka ayeeyay u tahay waa u sadaqay kartaan laakiin waa sadaqa sharciga waafaqsan waxa weeyaan sadaqa sharciga u bixiya lacag bixiya raashin ciirin bixiya xoolo nool bixiya masaajid la dhisa wax ugu dara dugsida quraanka la dhisa wax ugu dara waxa weeyaan ayeeyo wax u sadaqeeya waalidin wax loo sadaqeeyo sharci waa ogol yahay laakiin maatinta ama xafladaha la leeyahay waalida lagu xusa noocaas ma banaana meydkiina wax ka heli ma qofka sameeyna waa ku dambaabaa waxa soo haray xoolahaas ma xalaal ba mise waa xaraam meydka xoolaha loo qalayo hadii meydka aan wax laga doonin roob lagama rabo ilma lagama rabo risqi lagama rabo waxa la isleeyahay asagi wax loo taro dariiqada qaldantay qofka qalayna waa dambaabay meydkiina waa qaday laakiin neefku xalaal way muslim way dadka qalaya bisinka allana waa ay ku qaleen meydna waxba ugama rabaan ee meydkii wax tarayaan marka neefku waa xalaal laakiin xalaashaas haddii guri lagugu keeno mooye meeshii lama tegi karo waa meel rabbi lagu caasinayo ma banaana inaad ka qayb gasho markaasay kuugu imaanayday waa si kale kulliiba wallahu a'lam jazakallahu khayra